الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan ya akhira ilaahay waa ku cadaabi waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadii iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligii rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya balay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir ma min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad buu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tegaya dadna uu ka soo celinaya haddana uu la tegaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimideen ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhiman ilaahay waa ka cafinaya baa la yiri salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada استعينوا بالصبر والصلاة وكوا ماركتاني حوائج جودة باهدة أي ليهين markay arin ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordaya haday ciideeda iyo dayax isbedel ku dhaco salaad baa loo jideeyay haday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyay haday cabsoodaan salaad baa loo jideeyay haday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyay haday muraad iyo xaaje yeeshaan salaad baa loo jideeyay haday arin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhara loo jideeyay istaciinu bis-sabri was-salah duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayeen noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaaduu nabigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu ku raaxaysanne xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxaa yaalla saddex baa aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey atiibu waxaa li wixii udugay udgoon والنساء يا هوينكنا والله جعليسيي وجعلت قرة عيني في الصلاة هلك إنها يجي قلبي ku qaboobayana salaada laga yeelay buu nabigu عليه الصلاة والسلام marka saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyagu in salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyada ay ka tagaan nin culimadii salafka kamid ahaa ayaa mar alle markuu salaada xidho thabit al-bunani baa loo jiraa abu muslim rahimahullah waxa lagu yiri salaadana tukanaysid أنا كوان لا نسيت كويش هذا صلاة مر عليه مركو صلاة تكون للمذا كذا هذا ناس وحيل كابت من أجل الصلاة ل20 سنة وتنعمت بها 20 سنة بويري صلاة الروح ده بدن كيجا حقيقة ده إن جارو لبعض سنة أيام الصوت تبعي بالأصول ده لي هذا لبعض سنة وأقول راح يستقبل صلاة ناس كيفية الصلاة أبو تكتنو شيء بالغي وإنما يهونو صفك مركان قالوا له إمامك عن كذاشي سيستغير صلاة حيرنا وحان استحضار أن كسو حاضر صلاة قلبك يوم يقوم الناس لرب العالمين وحان كسو قال صفك المسجد كأن جوغا إنو يهكي محشر كبك قيامها هل كاسر مركا كحد أبو لصلاة إنان إله يرتاكن هاي بصو حاضرية اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عابدا سي واحد أدقو هذا جيدو أركيسو حتى أدقو أركين إلهي جل وعلا يساقاكو أركاي وحولي مركا وحن كفكرا مركا صلاة الإحدادة كي حق المدق يقشقي وملايكتو أي قادون لي إلهي باقو يري وحسابتا لقوية صدقاء هذا كي بالحدة يقشقي والله قاضي كي يقدم بيئي والله قاضي kii iga horeeyay oo la qaaday waxay salaadu ii dhamaatay aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku haray hadda ilaahay ku yeeri doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta ma salaadeeda ku dhameystaa buu ay reesli inaguna dareenka ku dhameystaa masaajid anagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-isha وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد أمين وركعتي إلا بعد صلاة العشاء أنا وأكو جرا صفقة هنا
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo waa la bilaawnu midh annagu alla waa ku darra laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligee gudaha ka wada hadallaa buu والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يلي رسولك دارت وارتانك وصاحبك إلا قدام بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبك سجع على عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتاب وحاكمد يلي رسولك inta qofka muuminka ajashu aysan ku iman asaga dhimashada u diyaar man minna la yakrah al-maut dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida nolosha jecel ashyaada materialka iyo lacagta iyo amalka saalixa qalbigeenu haday dhabaata ay nagu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanayaa wuxuu leeyahay lacag hadaad hayso mashaakilka way xallismaysaa خالق يا مخلوق أنا ما أنتم مدوا كلا قرن لا الحين خالق يا مخلوق إلهي ما دونا يا قلبي عمال كلا إنه وجهه إلا حق سمويان وما شيء إلهي أدونك وكفير يبو رسولك لقلبه علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقادة هذه كيمة دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكر الله فديك ورا ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا يرجك لا يبريك لا إلى بريدي سي عبسي دي سمويا وحمنت كلية جرك الله شاقين كليتها القلب قعمه هو اللبو لقوه هو اللبو عنده هو اللبو سنكه هو اللبو دبنه هو اللبو دقوه هو اللبو وفرسه كليه هو اللبو قربه هو اللبو بوذده هو اللبو لكن قلبك هو مد كلية بحال قلبك مد لوغا دقي وحبنت كلية جرك بنا هذا كما مشبه رسولكم إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرك بني آدمك حتى حقاك تجرك ودن با حقاقي حتى باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك ابو النبي يقول حتى قلبك حقاقه قلبك محوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا حتى قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدمك وحي نقنيا حبنا مرنا إلهي عن عسيانك سكودعي مرنا إلهي إني عاصيان وأتكان ما دام حمنتاسي maanta ay bukootay indhaheeni waxay rabaan bay eegayaan dhagaheeni waxay maqlaan bay dhageysanayaan gacmaheeni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheeni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheeni meesha rabna ku bixinaynaa hadalkeeni meesha waxaan kuna ku hadlaynaa Hasan al-Basri rahimahullah ayaa yiri 30 sano maan qoslin 40 sanana maan kaftamin waxaan soo gaaray rag iyo aqwaam waxaan soo gaaray aan markaan la joogo aan isku maleynayay inaan anigu tuuga aan isku maleynayay wa imaamke wa khayru tabi'in waya wa aalimki tabi'inta ugu cilmi badnaa wayaan waxa hadal kaale 30 sano maan qoslim buu yiri 40 sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaaray aqwaam markaan la joogo nagtooda joogana aan isku maleynayay inaan ahay tuug wa Hasan al-Basri ninka sadaqay hadday jirka xubinta hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meel ilaahay ka raali ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfadillaha yaxfadka ixfadillaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin
nin culamadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaaray tiinuhuna ma cadaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirku leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxa lagu yiri da'daadii waa tan dhaqaaqi leh dhalinyaradii ka yaryaraydoona way buusbuuseen way gaboobeen adoo maxaad cuntaa baa laga yiri noo sheeg wuxuu xadiiskaas ku amal falaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmada araga ilaahay kuma caasin buu ilaahay aragiibu quwadii aragu ilaaliyay buu nicmada maqalka ilaahay kuma caasin ilaahay quwadii maqalku ilaaliyay buu nicmada maaragtaan xoog iyo dhalinyarnimada ilaahay kuma caasin nicmadii dhalinyarnimadii xoogii baa ilaahay ilaaliyay ihfadillah yahfadka ba ku shaqeeyaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinay inagana maanta dhalinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratul macaasi waa macaasida weeyaan amarkaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeyahay waxaan doonaan eeg waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn yaa ka yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahay haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsado khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoomaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoomaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhi awriyaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adoo adu ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baanu igu soo celinay war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doonu uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotana kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahay hay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey hay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhiray mooyaane waxaanahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatanaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biyo kaa buuxa waxa bini aadamku ay haystaan maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigaya horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60kaa sana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا